السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالكني والسلطان ميديا برو. runtii waxaan idin rajeynayaa caafimaad qabtaan dhammaantiina runtii aad faraxsantihiin intiina xanuunsanaysan ilaahay caafimaad siiyo intiina caafimaad qabtaan aad runtii farxad ku nooshiin intaas kadib maanta waxaan idin wadaa qisooyinka aan idinka sheekan jiray qiso kamid ah waan hubaa qisadan haddaad dhegaysato inaad ku tusaale qaadan doonto ama qalbigaaga ay wax badan ka bedeli doonto runtii waan hubaa ila dhegayso qisadan waxay ka dhacday dal kamid ah dalalkan caalamka dal kamid ah waxayna ku dhacday doctorkaasoo runtii doctorada xilliga ugu magaca weynaa wadanka uu jooga maalin maalmaha kamid ah marka waxa loo sheegay inuu meel tagi doono meesha shahaado sharaf lagu siin doono meeshana imaan doono dhaqaatiir caalami ah isagana marka shahaado sharaf lagu siin doono kadibna dayuurad buu raacay dayuuradii markii ay cabaar socotay baa marka waxa ku dhacday cilad farsamo oo xagga cimilada ah roob badan oo daay jawiga si xiray kadibna dayuuradii marka kabtanku markiiba uu dadkii mataqaan ku wargeliyay in meesha ugu horeysa ay fadhiisan doonto kadibna airportka ugu horeeyay bay fadhiisatay airportkii marka dadkii ay wada degeen kadibna doctorkii marka wuxuu raadiyay xal maadaama aanu caawa halkan seexan karin oo Britole shirkiisa uu ka qayb gali karo uu rabo inuu ka qayb galo kadibna doctorkii marka wuxuu raadiyay in xal loo keeno dadkii oo waxay sheegeen ama dadkii airport ka shaqeynaya ama shaqaaliye airportku inaanay maanta caawa dayuurad halkan ka baxaysa aysan jirin laakiin Britole ay raaci karo dayuurada ugu horeysa baxaysa wadanka magaalada uu socdo tagaysa kadibna qof kamida marka dadkii airportka joogay ayaa wuxuu sheegay niyow meeshan aad u socotaaba 3 saac bay ku qaadanaysaa dad gaari raacdo maxaa dayuurad Britole ka sugiba maadaama adiguna emergency ugu baahantay ama degdeg ugu baahantay kadibna doctorkii iyo laba qof oo saaxiibadiya waxay raaceen gaariyaashan 24 saac la kreesta dabeetana sidii ba marka gaarigii markay ku raaceen cabaar markay socdeen adigu saacad 2 saac ama saacad badhe ayaa marka cimiladii baa marka ku sii xumaatay kadibna iyagii baa lumay wadadii baa ka lumeen ba ay ku socdeen kadibna wadadii markay ka lumeen baa waxa ku dhacday marka 3 saacadood oo kale meesha 3 saac ku gaarayeen 3 saacadood kale meel ayna adduunka ka garaneen soo dhaxoreegeen 3 saacadood marka u dhamaatay marka si degdeg ah waxa kaga soo warbaxay guri yar oo toosh ama inagu waxaana faynus oo meel uu ka iftiimay arkeen kadibna gurigii bay ku garaaceen guriga marka waxay ka codsadeen ama doctorku ka codsaday in telefoon la siiyo oo dad degdeg ah meeshan uu joogaan u garanay laga caawiyo iyo in daaway gaajoonayna marka cunto la siiyo maadaama qabow badan ku soo dhacay roob daayo kadibna albaabka marka waxa ka furay islaan cimrigeedu aad u weyn yahay oo 70 ama 80 jiro labada lugoodna curyaanka aan kici karin kadibna waxa sheegtay marka inaan telefoonyada bahaysan laakiin ay siin karto cunto dabeetana adigu gurigii bay galeen cuntadii baa la siiyay adigu xogaa qabow faraha badnaa way ka reebtay uu ka haray kadibna marka gurigu isha la raacay odayga doctorkii guri reer yar iska dhibaataysan islaan yar oo curyaan oo bahad yar ku socoto iyo ilmo yar oo meel saas kale u jiifa kadibna wuxuu maqlay islaantii marka duceysanaysa deetana cod yar sara ku duceysanaysa laakiin hadalkeeda caadi loo fahmay kadib marka ducada soo dhameysatay intuu doctorkii la hadlay buu ku yiri waxa kugu dhacay ku duceysanaysa hooyo deetana waxay ku tiri inta farta ugu fiiqday ilmo yara bay ku tiri ma yar markaysaa ayay baan wahay waalidkiisina soo yar bay dhinteen kadibna waxaan xanuunsanaya neerfaha ayaa xanuunaya marka ducooyinkayga dhan waa la aqbalay hal ducoon baa laga aqbalay inuu cunuga Ilaahay caafiyo marka waxaan Ilaahay weydiinay inuu farish khayr qaba siiyo waxaana la sheegay doctor meel adigu aan ii dhaweyn jooga inuu mataqaana inanka xanuunka hayo daweyn karayo laakiin aan waan socon karin awoodin gaari haysan waxna mataqaana aan qaban karin marka Ilaahay baan u bariyay inuu farish khayr qaba Ilaahay u furo habeen iyo maalin waan u baryaa inanka yar cimrigiisu yar yahay in aanu adduunka sida ku dhamaysan deetana doctorkii intuu qalbigiisii runtii xajin kari waayay eelin ku soo istaagtay ayuu wuxuu ku yiri doctorka mid garanaysa magaciisa deetana waxa uu sheegtay isla magacii doctorka laftigiisa waana isla doctorka laftigiisa runtii qisada ku dhacday runtii intuu yaabay eelintii xajin kari waayay ayuu ku yiri yani anigu waxaan la yaabay lama yaabin buurin kale xanuunsanaya
waxaan la yaabay buu yani doctorka aad ka sheekeynayso aniga safar baan usoo baxay dayuurad baa laga soo dejiyey dayuuradii markaan meesha ku tegay safarkayga aan u socday waxa igu dhacay buu waxa la igu Britolo meesha ma tagi karto hamigayga waxa kale buu gaari ku tago maadaama meeshu ay dhowdahay la sheegay gaarigii baan markaan cabaar ku soconay nala lumay yani jawiga inta leegaan marayo waxa way ducadaadii la aqbalay isla markiina doctorku wuxuu bedelay balaankiisii wuxuuna u jeestay inuu gira kaxeeyo hooyadiina wuxuu ku yiri u ducee inuu Ilaahay caafimaad siiyo aniguna intii maadaama doctorka cudurkan haya ku takhasusay ayaan saaraya يعني الرحمن الرحيم يعني إلهي والرحمن والرحيم دعاء كستو عاد إلهي ويديستو هذا ولا قبليا إلهي حتى كاسو هذه هركو تماذا إلهي الدعاء هذا وقبليا مركا إنك دان أمة مسلمة نهاي وحين واجبة إن إلهي برنو إن متقنا أين كدا لين دعاء إلهي إن متقنا والد كنا مركز تو دعينو إن وحكستو مركا قلوبتين إنه ينقول شرينا دعاء إلهي وكودي سنة أنتي واحد كيتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.